gabadhana u jeedin jaamacadeeda shaax ku dhex iibisa si ay lacagta jaamacadda isaga bixiso maalin ayadoo shaqadeeda ku dhex jirtay waxay arkaysaa midko ay saaxiib yihiin oo naag kale la taagan intay u wacdo uu iimaanaa kadib wuxuu ku dhahaa adiga soo marar badan kuma sheegin ma la soco kari qof asxaabta ee jaamacadda igu ceebeenayo shaax ka iibinayo midii isaga la socotana waxay taagan tahay waqti uu ka dhamaada u maleynaa or shaaxaga iibso kadib labadoodu way isaga tagayaan mar kale iyadoo meeshaan iska maraysaa midko ardada kamid istaajina wuxuuna weydiinaa alaabtan awoodid maxaa waay wax miyaa iibinaysaa waxay ku dhehaysaa waxaan aad u jeedid shaax waaye waxaa ka iibinaya jaamacadda dadka joogo wixii aan lacag shaaxa ka helana jaamacadda lacagteeda ku bixiya ee hadda adigu ma u baahantaba kaa iibina wax ka gadanayo intuu iska dhigo markii ay siiso wuxuu bilaabaa inuu dhulka ku daadiyo shaaxi wax yar kadibna iyagoo murmaaya ayaa waxaa u imaanaya maamulaha jaamacadda kadib wuxuu weydiinaa labadooda meesha maxaa ka dhacay midkana wuxuu dhahaa ma aqaanin sababta aad gudaha ugu ogolaateen qof waxaanoo kale iibinayo markii aan ka diiday waxaan ay iibinayso inaa ka iibsada intii xanaaqday dhulka ku daadisa ka waran iyaduna waxay dhehaysaa beenuu sheegaa markii koobaad wuxuu igu dhahay shaax iishu markii aan u shubana dhulka ku daadiyey laakiin maamuluhu iyadu intuu kusoo jeestay wuxuu u sheegaa inaan la ogoleen in shaax lagu dhex iibiyo jaamacadda kadib iyadu waxay bilaabaysaa inay uga sheekayso sababtay sidaan u samaynayso ugu dambayn waxaan iga aruuriyo ku dhahaa hawsheeda inay wadatana waa u ogolaanaa mar kale naag wadada maraysaa intay istaajisay waxay ka dalbanay inay shaaxa u shubto kadib lacag badan intay siisay waxay ku dhehaysaa baaqiga waa iska qaadan kartaa makaa rabi waxayna weydiinay dhinaca xafiiska oo ay rabtay weyna u tilmaamay maalin kale kuwa ay isku fasal yihiin intay aragtay waxay isku dayaysaa inay salaanto laakiin iyagu waxay bilaabayaan inay ku baashaalaan iyagoo ku dhahay maxay caleenta kaaga soo ure markii ay shaqadeeda dhammaysato si ay galaaska u gasho alaabteeda oo meeshaan iga jirtay dhigane isla markaas ay alaabta meesha dhiganaysa midkoo ardada kamid ah meesha ka daawanayay markii ay meesha ka tagtay alaabtii ay meesha gelisay intuu soo dabamaro meeshii kasoo bixina xaasinimo intuu ka qabana dhulkii intuu saa'id u wasaqeeyo turmuuskii daboolka ka jibina markii ay xiisadaha soo dhammaadeen waatana iyadoo rabta inay alaabteeda hor u qaadato markii ay aragto in alaabteedii laga jijibiyey iyadoo meesha murugo la fadhisaa waxaa u imaanaya midkoo isku galaas yihiin markii uu weydiiyey waxa ku dhacana waxay u sheegay turmuuska keliya ku shaqaysan jirtay inay ka jibiyeen midkaanoo xaaladeeda la socdana wuu ku dhiirigelinaa inay shaqadeeda hore u sii wadato xoogaa kadibna labadoodu xaafadooday kala aadayaan maalintii labaad iyadoo galaaskeeda sii gelaysaa waxaa ka hor imanaya labadii ay isku galaaska ahaayeen sidii caadadooda aheedna waxay bilaabayaan inay dharkay wadato wax ka sheegaan kadib iyadu waxay ku dhehaysaa hadalkiina haddii aad dhammaysateen waddada ii banneeya xiisadaa ka daahayay middan waxay taagan tahay sidaan ku adkaysan kari aabbahay awaca waxaan u sheegaa inuu iga bixiyo jaamacadda shaxlayaasha joogaan waxaa la gaaraa marka maalin ay ardadu cashir muhiima soo jeedinayeen labadaana way qiimeynayeen kadib ardaydaana lagu bilaabaa laakiin midaan kama helayso sidii wax soo jeedisay haddana ardaygan kalea lagu xijinaa laakiin iyadu sidoo kale ma ka helayso ilaa ay ugu dambayn goobta timaado gabartii saaxiibtiina aheedoo shaaxa iibinaysay middan iyo maamuluhu markay arkaan qaabkii ay wax u soo jeedisay si saa'iday ugu helayaan markii ay bannaanka u soo wada baxaan maamuluhu middaa wuxuu ku dhaha ka waran qaabkii ardadeedii wax u soo jeediyeen ma ka heshay waxay ku dhehaysaa haddii aan daacadnimo kaala hadlo ardadaada qaabkooda ma ka helin marka hal gabar laga reebo gabadhaasna maalin hore jaamacadda dhexdeeda ku arkay iyadoo shaax ku dhex iibinayso midii laga sheekaysanayana waa tanaa ee waa timaaday middaana waxay ku dhehaysaa hadal badan makuu galaya ee kaarkayga waa kana ii imaw kambanigayga kuu baahane intaasna waxay u raacinaya inay ka heshay qaabka ay wax u soo jeedisay hadda kadibna ay ka noqon doonto suuqgeeya kambanigeeda imtixaan ardada laga qaado kuwaa natiijadooda markay arkaan waxay arkayaan inay saa'id u hooseeyaan gabadhiiyo intay arkaana middan waxay weydiinaya oo hadda shaqa miyaa lagu siiyey waxay u sheegaysaa inaan shaqada si fudud ugu siin ee laga helay qaabkii ay wax u soo jeedisay waxayna ku dhehaysaa haddii aad mar hore danihiina ku mashquuli laheedeen oo dadka kale iska day laheedeen waan ila qaadan lahay muuqaalkan intaasuu ka ekaayay haddaa halkaas soo gaarta leegnoo saar ninkan aad u jeedin sida badarka oo kale raashinka ugu cunaya lacagtaana sidaan dhan waxa u sameynaa dib ayaa ogaad doontaa qorshe ayuu ka wataa kadib midkoo meesha fadhiya intoo yaaba ayuu wuxuu taagan ninka maxaa ka qaldan oo lacagta cunaya xoogaa kadibna waxa uu imaanaya midka maskiinka ah wuxuuna ku dhaawaa gaajaysana ee xoogaa lacag isii ayuu ku dhaha isagiina lacag dhan intoo soo bixi ayuu farta ka saara wuxuuna ku dhaha lacagtan adiga iskale ee ku baashaal midkaanna wuxuu ugu mahadcelina ninkan wuxuuna ku dhaha waa maasantahay lacagtan gaanka badan maadaama ay siisay midkaanna wuxuu taagan yahay ninkan waa nin in lagu dayda mudan waana nin deeqsi ah maskiinkiina weli wuu faraxsanyahay midkaanna wuxuu ku dhaha lacagta waa ku siiya meeshaan iskaga tag midkii maqaayad iskala intoo u imaado ayuu wuxuu ku dhaha raashinka waa dhammaysa 200 bis ayaa laga rabaa isagiina lacagtii la weydii lacagayaan intoo soo bixi ayuu wuxuu ku dhaha lacagtan qaada aniga ayaa ku siiyey maqaayad laana intoo yaabo ayuu wuxuu ku dhaha raashinka ku siiya lacagtaasiisa isma lahan isagana wuxuu ku dhaha aniga ayaa ku siiya lacagtaas ee iska qaada ayuu ku dhaha meeshaan iskaga tag kiina weli shaahu cawaa wuxuuna taagan ninkan inaa kasal gaar waa intuusan bixin midkaanna weli wuxuu la faraxsan lacagtii tirada badan laga siiyey kadib ninkan intoo jilibka qabsaday wuxuu ku dhaha waa maasanta isagana iga tag ayuu ku dhaha waana ka tagaa meeshaan kii maskiinka ahayna wuxuu taagan yahay ninkan inaa ka daba taga oo anigana lacag aan weydiisto kadib wuu soo cararaa wuxuuna imaana ninkii meeshii uu fadhiyay xoogaa lacag oo ku ilaawa intoo soo qaata ayuu jeebka soo gashanaa kadib intoo kasoo daba carar ayuu wuxuu ku dhaha aniga waxaan ku arkay adigoo lacag dad siina ee maxaa kaa qaldaniyo dadkaasna maxaa lacagtu siiyeysa isagiina su-aashii la weydiiyey intoo roga ayuu wuxuu ku dhaha lacagtan tirada badan sida aa ku keen ma rabta inaa ogaato isagana haa ayuu ku dhaha waxaan kaa codsana inaa ii sheegta si aan lacagtaas aa ku samaysay isagana wuxuu ku dhaha iska dhaaf ee xoogaa lacagtan qaada iska baxniyo midkaanna uu meekami nin quusanaa wuxuuna taagan yahay niyo waxaan rabaa sirta lacagtan aa ku keenta inaa ii sheegta isagana wuxuu ku dhaha sirta inaa iska dhaafta ayaa ku fiican haddana mar labaad xoogaa lacag ayaa ku siinaa meeshaan iskaga tagniyo waa kugu diga aniga midkaanna intoo gacantiisa qabta ayuu wuxuu ku dhaha lacagtan ashigiisa dhan maraw ee waxaan rabaa sirta inaa iga dabageysa isagana wuxuu ku dhaha sirta aniga iyo qaas ita qof inaa u sheeg maraw ee tag midkaanna wuxuu ku dhaha waa inaa kaarkan oo kale oo bangiga ah ka soo qaadataa lacagta kugu jirtana waa inaa la soo baxdaa kadib boorso soo gasho een iimo hal maalin kadib iimo kadib ayaa ku
ku sheegaa sirtee. ugu dambeyn hal maalin kadib ninkaana lacagtii boorsada loogu diray wuu keenay wuxuuna taagan lacagta waa kana maxaa sameynaa. isagana wuxuu tusinaa mashiinkii uu ku taajiray wuxuuna ku dhahaa mashiinkaas waa mashiinka ku taajiray ee adigana waxaa sameeyaysaa xoogaa lacag intaa gelida ayaa waxaa arkaysaa lacag badan oo ku soo baxaydo sidaas ayaana ku taajiraysaa. kadib midkaana wuu soo baxaa wuxuuna imaanaa mashiinkii loo sheegay wuxuuna taagan mashiinka waa mashiinkii faqriga ugu bixi lahaa. kadib xoogaa lacag intuu geliya ayaa waxaa ugu soo baxaa lacag kaloo meesha wuxuuna taagan yahay ninka waa runtiisa hadda kadibna faqrinimada waa ka baxaa. haddaa maqli jirteen wax badsa wax been ayay leedahay ayadoo muuqaal ah waatane ninkan wax ku dhici doona dib ayaa ka ogaa doontaa. kadib lacagtii dhan ayuu meeshan ku gurayaa xitaa xoogaa lacag yaroo boorsada ugu soo daaday xitaa mar reebanaa. kadib wuxuu ku wada gurayaa mashiinkii isagiina hadda wuxuu sugayaa lacagta inay ugu soo baxdo wuxuuna taagan lacagta maxaa ka qaldan waana soo bixi laadahe. xoogaa intoo isla sheekaysta ayuu wuxuu taagan ninkii sabra ayaa wax hele waana sabra aniga fuustadii mashiinkii loo maleynaani nin ayaa ku dhex jira. kadib waa kane intoo ka soo baxa ayuu lacagta dhanna kala soo baxaya kadib wuu soo guranayaa meeshaana wuu ka soo tagayaa. kadib asxaabtiisii u imaaday adigaan fiirsanana muuqaalka laagama saarin weli. ninkaana waa nin aad u qorsho badan nimankaana way is ogaayaan kulligood ninkan si loo dhacayaa la rabay. ninkan wuxuu taagan yahay waa dulqaatay qoraxdan ayaan fadhiyaa nimanka ma ka yeelaya ku dhawaaqayaa mirwaan umaleeya. isagana wuu shakinaa wuxuuna ogaanaa inaysan mashiin ahayn oona waxaana baakad iyo taayar meesha laiskugu keen ay tahay iyana fuusta. muuqaalkan intan ay ku ekaada intaa soo gaartay laag iyo follow iskugu dar.